annaga dhuumasho nagu dhegaysanaysa soo maaha maya aniga waxa ma aana maqal runtii baan ha sheegin wax walbaan ku sheekaysan inaad maqasho maaho mudana alb waan kuu dhaaranaya arrintan qof kale lama wadaagay annaga maa wax qaldan sheegnay laba saaxiibo arrimahooda ka sheekaysanaya okaadi baarki wax yaroo ku barya halkan shaqo ma soo doonan kartid dhagama leedaha qofi dib damba maqaayadda inaan kugu sii dhaxalka ma raba soco ka dhaqaaja meesha ka tag halkan hooyada aniga ayaa beerka u bixinaya wax walba igu qaadato diyaar ayaan waa inaan sameeyo haa walaal waa ku maqlaa qaybtaada waan kuu soo diray waad la socotaa soomaa heshiiskeena inuu ahaa 50-50 may looma baahna arrinta dib in looga laabto badeecadaada way ku soo gaareen maya sidaas ha samayne see heshiisku kansalaya yaqeen nagadaa halow fiire qolada heshiiska la galnay heshiiska way nooga baxeen mudana signaalka mar kale ayaa weynay waryaa haddaad signaalka igala hadlaysa soomaa waryaa gabadhaas meel walbay jirto iyadoo nool inaad ii keenta ayaan kaa raba bax ii keen haye qoftan dalabkeeda ma aqbalaysid miya waaba aamini la'ahay aniga horaana kuugu sheegay waxaa samaynaysa waa qalad qoftan waa shaqaalaaga haddii la ogaadana kiis weyn ayay kugu noqonaysaa walaal waddo kale ima bannaana baarki 7.5 milyan adduunkan ku nool miyaa qof kale ka weynaysaa waa hubaal waa helaysaa qof kale laakiin anigaan ahayn waqti aan ku raadiya okay kaba sooqaad isku dhiig ayay noqdeen beerkina way siisay laakiin ma ogtahay qoftan in ay shaqaalahaaga tahay oo ay amarkaaga qaadato hadhow dadka sidee ku aaminayaan qoftan inaad lacag siisay run ahaantii wax la aamini kara maaha midaas mana soconayso anigu taas waxba kaba ogi baarki mar kale ayaana ka fikiraya arrintaas tamaam mideeda kale ilaa hadda aniga dalabkeeda ma aanan aqbalin ugu horeen waxaan rabaa brobleemkeeda haysta wax weeyaa inaan ogaado xubin jirkeeda ka mid ah sidee bay lacag ugu iibsan kartaa qoftan arrimo kale ayaa haysta run ahaantii arrintan way iga degi la'dahay waana ku jahwareer runta markaan kuu sheegay aniga la soo hadlaaya sabab maxaad u ogolaatay hooyadee inaad beerkaaga siiso sababtaa lacag ayaan u baahanahay lacag ayaad u baahan tahay sax lacag darteeda ayaad nu ogolaatay hooyadee inaad ugu deeqdo sax horta mala socotaa arrintan in ay dembi tahay waan ogahay adiga og misna weli waxaad diyaar u tahay arrintan inaad xabsi u gasho sidee ku dhacdee sababtu maxay tahay ujeedkaaga waxa uu yahay ma ku weydiin karaa iyo lacagtaas waxaad ka damacsan tahay qofkaad u rabtid idhegaysa mudana alb aniga waddo kaloo ii furan ma lahan hadda ma ii fahantee halistan inaad u bareerto maxaa kugu kalifooye deen ayaa liigu leeyahay cid bini aadan oo iga gudi kartana ma lahan sidaas darteeda dalabkayga ma aqbalaysaa aayar okaadi bal wax yar okaadi waan fahmi lahaa arrintani markii ugu horreysay baabuurkaygaad isku dhigtay sax
kadib aniga lacag yar oo aad isku daaweysa ayaan ku siiyey markay xigtayna lacagtiya dib iigu soo celisay haddase waxaad hor fadhidaa adigoo leh diin fara badanaa laygu leeyahay iska gudayaa waxaan oo dhan inaysan game ahayn sideen ku ogaanayaa sideese kugu aamini karaa waayo waddo kale kuu furan ma lahan anigana sidoo kale arrinta haddii ay halkaas maraysan anigana sidoo kale kuguma kalsooni laakiin hal mid aamin waddo kale haddii ay aniga ii furan tahay kuma dhiiradeen arrintan inaan sameeyo dhiiggaaga noociisa ii sheeg kuma fahmin dhiiggaaga noociisaan rabaa in isleeyihiin hooyay in kale si aan u ogaado sikin positive waa second positive ma aha waaya haddaba inaan dalabkaaga aqbale ka soo qaad meeqa lacagaad u baahan taha marwaneeba anaga baaritaan markii aan kuugu samaynay waxaan ogaanay maskaxdaada inay buro ka taalo way fiicnayd shil inaad gasho kadibna aad isbitaalka imaado waa in qalin lagugu sameeyaa haddii kale waan dhimanayaa miyaana laakiin aniga gabar yar ayaa ii joogto $500,000 meeqo $500,000 ayaan ku rabaa aniga beerkayga hore $500,000 maarta hore saasba haddaad hunguri weyntaa hawshan muxuu kuu siiyey jiifka waad iga yaabaysa qof maxaa dhaca ma dhibaato kale ku haysato waan fahmay maya gabadheeda ayaan u baahanahay nolosheeda si nabadgelya inaan ugu hubsado aniga la'aantay farxad inay ku noolaataan rabaa qof aan aniga ahayna haysatana ma jirto sidaas darteed waxaan u baahanahay waxbarasho fiican iyo nolol heer sare inay ku noolaato wax walba gabadheeda darteed ayaan u sameynayaa soo maha gabadha yareed oo isbitaalka kula joogtay tamaam haddaba waan ogolah waan ku siinayaa lacagtaad sheegatay ma hubtaa dalabkayga ma ogolaatayna haa dabcan isbitaalkaan beri tegaynaa markii tijaabada laga qaado haddii riboodka uu is yeesho kadib waxa dhiman waan ka wada hadli doonnaa waayahay hadda gurigayga ma aadi karaana may meelaad aadaysid ma lahan sababtoo kuma aaminsani sidoo kale aqoon kuuma lihi hawsheeda qabya inaad uga tegeen sideen ku ogaanaya yaase ii damaanad qaadaya middaas sidaas darteeda lagama yaabo in aan ku fasaxo halkan ayaad joogaysaa maya aniga halkan ma joogi karyaaqe waayah iridda laga baxada waad garanaysaa heshiiskanan meeshaasu ku baaba'ay waayahay waan ogolahay ugu yaraan ii ogolowle inaan masquul aado si aan fresh isaga soo dhigo mise ilaalo gaaraad iga heynaysaana
كو الله صدح Birisine aşık oldum birisine, rastlamak çok zor şeydir böylesine. Birisine gönül verdim birisine, rastlamak çok zor şeydir böylesine. ay قاسم waran akhyaare banaanka iska aadana xoogaa waqtiga qaadan rabnaa iska soo wareega xabiibi inadii imaanaysa maba aanan filin aadan ugu faraxsanahay maxaa ku dhacayna sidee wuxuu jiraan maxaa kaa siiya saylaan booqashadani waxaad ogaataa tii ugu dambaysay halka ku imanaya inay tahay dabcan waad saxantaa adiga nin ganacsadaa taa meelaha ina imaadsa looma baahna gurigan ku wada kulmaynaa hadda kadib sidee kula tahay soo okay maa xabiibi wax kale aadan ogeyn ma kuu sheega aadii aadan kuuga xiisay markii aad ila joogtana waxaanba u maleeya dunidoo dhan inay istaagayso kaliga oo keliya aad ka noosha saylaan anigu halkan waxaan u imid sheekadeenna inaan afjaro maanta wixii ka dambeeyana ma kulmi doono yaa maxaad ku hadlaysaana naagtas xunaa ku dhahda maahano qofta naagta xunaad ku tilmaamaysaa waa aniga xaaskayga khalad ayuu ahaa runtii xidhiidhkeennu laakiin anigaa ka soo habsaamay sow maaha macquul maaha ima aadan jeclayn miya waan ku jeclaa maxaad ii dhihi jirtay kaalbeen maa ii sheegi jirtayna inta gacmahayga qabatay indhahana indhaha ii saarta ayaad waxay dhihi jirtay waxaasoo dhan been miyay ahaayeen ii sheeg ma beenad ii sheegi jirtay aamusnaantaada ayaa jawaabi ah qaasim beenna iima aadan sheegi jirin waan hubaa waad i jeceshahay inaan anigu ku jeclaa run bay ahayd balse jacaylkaasi wuu dhammaaday saylaan wax walbo inaga dhexeeyna way dhammaadeen noloshan dhuudhuumashada ana anigu kuma sii jiri kara sida runtaa baan ku leeyahay runtiina iminka kuma sii hortaagnaan kara anigu sideed horteeda u taagnaan karin ii sheeg sideedan ii hortaagnaan karin wiilkayga oo maalin walba sugaya inaad la kulanto maxaan ku samaynayaa ma ka fogaanaysaa ii sheeg may macquul maaha qoftaas iyo hantidaas indha aan ahayn ma lihid waxay ahaataba anigu go'aan waan gaadhay familkaygaanan doortay familkaygana dhibaato uma doonaya anigu maxaa dhac aniga familkaaga ma nihin miya haddama waxaad go'aansatay inaad nicilayso dadkaas naga doorato nabadgelyo baan ku leeyahay macquul ma qaasim waan ku baryaa tartiib mar kalaan ka wada hadlaynaa isdeji anigoo degan ayaan kula hadlaya sidan nagu cidlayna garabkaaga ayaan u baahanaa qaasim cunugayga maxaan kula hadlayaa waa canug yaroo 4 jira wax uu fahmaayana ma lahan albi maxaan u sheegayaa marka qaasim
alaabaan iyo gaarka ha isku taaban haddaba maya aniga waxba ma sameynooye laakiin raadiya iyo kataarka len fiirinayo adiga miyaa shita ii sheeg bal tarabba su'aalaad tahay qof ihe maya uma ekid adiga qofta gitaar garaacaya inaad tahay sidee ku dhihi kartaa dadka gitaarka loogu talagala noocay u ah aniga ma ogi laakiin gitaarka dareemo fara badan ayuu leeyahay haddaba ma garaaco aniga su'aal kale ma qabtaa mudan gabadhaas meesha joogtaa soo ogaanay xaggee joogtaa makhaayadii ka shaqeynaysay war saacan makhaayadaas maxay ka qabanay wiilow ma aqaano mudan laakiin gabadhaas booliska taa u war sheegtay booliska dee waxa u sheegtay miyay shaqadeedu wadan leed booliska waxba uma sheegin gabadheeda anaga ayay gacanteena ku jirtaa meeshaan waxaan ka dareensanahay sheeko kale inay ka socoto idinku waxaad samaynaysaan ordaa gabadha halkaan iigu keena amarkaaga jiro laakiin makhaayadaas annaga ma geli karna mudan war makhaayad ma geli karna hadal ma noqonaysa fiiri matac may haystaa iiga keena waayahay mudan makhaayadda saa jecesha socda adigana dhaqso baaritaan ii sameeyey booliskay wacdee waxa u sheegtay waxa iga soo ogow dhaqso waac waayahay mudane Ne oldu? Bu şarkı heestan runta hooyada aaday u jeclaan jirtay yaraantii ayaan maqli jiray markan hadda maqlana wax ayaa igu soo dhaco maxaa kugu soo dhaca ii sheeg xeebta agteeda guri yaro alwaax uu ku yaalo anigii hooyadii aan wada joogno meeshaasna nolosha si farxad leh aan ugu qaadanayno riyo aad u qurux badan dadka codadkooda aan meel dheer ka maqlaayay weliba noloshooda caadiga ayay ka sheekaysanayeen sida qaadooyinka fargeetooyinka hooyadii dhabteeda ayuu madaxa iga saarnaa madaxa intay gacanta ii saartay ii salaaxaysay runta riyo aad u macaanoo nabad ku jirtay ahayd balse wanaaggii iyo nabadda heesahoo keliya kuma eko ayada xitaa qof aad u wanaagsan ayay ahayd heestan ayaa riyadeeda sida backgroundkoo kale uga yeeraysay waxaana dareemaya duni xor aan u ahaa inaan ku hurdo muddo dhowr sanaana maanan arkin hurdo noocaas ah gaaja ay qabatay waxaan cunaan noo keenayaa haddii aad rabtana waad soo doonan kartaa hay waa kan aabbaha buu yimi haye turkaaney adiga iyo wiilkaagu maxaad ka wada hadlayseen maanta mudane qaasin maxaan ku keenaa oo jeceshahay qaxwada ii keen dhaqso
haye wiilkaaga maxaa kale fikradeed u haysaa eed ku dhalinaysaa runtii waxaa la joogaa xilliguu familka aasaasi lahaa oo weliba uu isku keeni lahaa familka dhammaantood soocaynka ma haddee haddii ay dhici lahayd soo maaha runtii maalmahanna wiilashayda mid ka midii maqaaxidiisa iyo shaqadiisuba ku mashquulsan yahay kii kalena habeenkii ayuu baashaalkiisa iyo howlihiisa kale iskaga jiraa anigu rajo sidaa u ballaadhanoo niminka labadooda ka leeyahayba inay jirto uma malaynayo uus baan taaganahayba maxaad sidaas u leedahay idhegayso amiir hadda wuxuu bilaabay ganacsigaaga inuu kula wado oo shaqadoo dhan uu kula wado nolosha habeenkiina caadi weeye inuu iska daayay hal maalin shaqo in la qabtaa waa wax iska fudud laakiin waxaa loo baahan yahay maalin kasta in si joogto ah shaqada loo taagnaado oo loo dhabar adaygo waayo aniguba 30 sannadood baan soo taagnaan soo shaqaynayay aniga xitaa kambaliga dadaal fara badan ayaan geli soo maaha sidoo kale amiirna hadda wuxuu joogaa da'adu wax kasta uu ku kala garan lahaa inankaygi runtii si fiican baa u shaqaynaa soo maaha labadiina barunta haddaan idinkala hadlo waa idinku caajisaya igaraal noqda habeen wanaagsan fiir bombilareer malable macane inaa ku dhow hooyada hadday imaadaha u sheegaya haddii kale waa iga xanaaqaysaadno daarkale moogtaa mar walba iiraan dhaha aniga malable macane waa igu heli jirta moogtaa laakiinse hadda wehelkeera ma haysto anigoo kaliya ila joogta aniga ma og tahayne meeshan aad joogo hooyada ayaa imaanaysa weyna iga kaxaynaysaa meel walbo aad joogana iida way ogtaa qalbiga igala socotaa anigana sidaas darteed cabsho dhan maba i haysabo feer balanteeda waan ku taaganahay laakiin adiga balantaada dadka soo bixi weyso gaarigaas iyo booliska gacanta ku dhigaan waxaad ogaanaysaa gabadhaada dib daba inaadoon arkayn alla ilaahayo wax walbina ii hagaagaan ayaan kaa baryayaa wax walba adiga darta ayaan u sameynayaa wax walba gabadheeda markaan aniga kaa tegay kadib adiga madaxaaga inaad qoos u raariciso nolol xur ah inaad ku noolaato ayaan rabaa waan ku badbaadinayaa gabadheeda oo waa labadeena mar kale ayaan midooweynaa la'aantaa ma noolaan karo subax wanaagsan hadda shaqaalaha waqtiga imaanayay waan dhaqsa adiga kor iska kor siyaasa meeshaan kugu arkin goordhow waan israacaynaa labadeena runtii xoogaa waan hurde iga raali noqo bannaanka ayaan sii aadayaa هاي محاين على تاجي أركتي ميا كوارس مي فلين
naayaa maxaad samaysay aawe gaarigayga badeecadii igu ranay yaamin aniga wax qaldan ma sameynin haddii aadan wax qaldan samaynin gaarigayga xali maxaad iigu keeni weyda aniga waan rabay inaan kuu keeno laakiin boolis ayaa isoo daba taagnaa kadib anigana booliska ayaan ka baxsaday wax kaloo sameeyay gaariga hadda aawe halkaasuu baakiman yahay keen fura baxa iga soo hubay gaariga wax yar haddii ay khaldamaan waxaad ogaanaysaa inaadan naxariis iga helayn aan ciidda kaa hoos marinayo waan ogolahay gabadheeda sidee tahay shalay ayaan kuu sheegay heshiiskaynana wuu baaba'ay gabadhaada waxaad helaysaa lacagtaan kugu leeyahay markaad disiiso aniga ooshaada waan kuu qabta walaalo gabadheeda isii haddii aad gabadheeda isii weysana waxaad ogaanaysaa lacagteeda markaad isiisid ayaan gabadhaada kugu soo wareejinayaa inta ka horaysana hoosheedii qabo magacayga iska baro waa korhaan ataash qofkii isku dayay inuu dhaawac ii geysto dab ayaa noloshiisa ku shida maya waad i qayaanaysaa soomaan nacasiyo xumi haddii aad gabadheeda ogow dhibaato yar soo gaarsiisa aniga gacmeyga ayaan nafta kaaga qaadayaa waa arkaynaa gabadhaada maxsalaame inaad daada xataa kuuma fasaxayo maya sidaasaa sameeyna waan ku baryaa gabadheeda dhibaata iga gaarsiinin aniga waan ku baryaa gabadheeda iga dhibaateenin